شرفت المدينة مرحبا يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ولا رير مليسية جاليدنا maanta kulankan soo xaadiray waan u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala khayra ka siiyo xudurkooda iyo imaatinkooda iyo dhegaysigooda ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kulankeenna inuu ka dhigo kulan barakaysan ilaahayna naxariistiisa ku soo dejiyo allana subxaanahu wa tacaala carabkayga iyo qalbigaygaba ku sugo kelimadda xaqa ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhegihiinna iyo qalbigiinnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala u furo idinka iyo inta dhegaysan doontaba ee aaladaha iyo meelaha laga wada xiriiro ama warbaahinta ka dhegaysan doonta inta aanan u gelin kelimadayda ama muxaadaradan kooban oo aan idinla wadaagi doono kuna saabsan qodobada ama qawaacidda ama principleska ama asaaska ay u dejisay shareecada islaamku jiritaanka ummadda oo ay ku xafidayso ku dhowrayso ummadda jiritaankeeda ummadda islaamka weeye ummaddan ka hadlayno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr idinka siiyo waxaan jeclahay intaanan muxaadarada u gelin inaan horta ka tacsiyeeyo naftaydana uga tacsiyeeyo idinkana idinka tacsiyeeyo musiibooyinka xoogaa yaraan isdhegaysanno hala aamuso musiibooyin isdaba joog ah oo in laga tacsiyeeyo mudan ayaa dalkeenna iyo dadkeenna haysta mid ka midana saacadahan hadda aan hadlayno ayay taagan tahay waa dagaalka ka socda ama la isku hor fadhiyo magaalada gaalkacyo ee dhiig dad muslina oo soomaali ah oo walaalo ah uu ku daadanayo ama la rabo hadda inuu ku daato arrinkaa uu ka tacsiyeynayaa naftayda iyo ummadda muslimka ahba ee walaalahayna soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo idinka iyo inta kaastaba waxaan uga tacsiyeynayaa musiibadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ana waxaan ka baryaya inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiigga muslimka ee daadanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhowro ilaaliyo ilaahay joojiyo ilaahay subxaanahu wa tacaalana waxaan ka baryayaa colaaddaas iyo tan la midka ah kuwa la midka ahba inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkeenna ilaahay ka dulqaado kana joojiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala nabadgeliyo iyo xasillooni iyo deganaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhex dhigo walaalayaal dadka soomaaliyeed waa dad walaalo ah oo muslin ah oo qaraabo ah oo xigto ah xigaalo ah xidid ah qaraabo ah hal qoysa intaasoo dhan oo xididaa baa kulmisa marnana ma bannaana dhiiggooda inay bannaystaan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa u dembeeyey ummaddiisa wuxuu ahaa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada yacni dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo sharaftiinna iyo cirdigiinnu xaaraan buu idinka yahay midkiinba midka kale xaaraan buu ka yahay oo muslimka ah sida maka ay u tahay beled xaraama oo bisha dilxija ay u tahay shahar xaraam ah oon waxba dembiyaa la samayn karin marka dhiigga sida xaaraanta u ah in la bannaysto sida dagaalka hadda ayaamahanba colaaddiisu ay ka taagan tahay magaalada gaalkacyo ee maamulada soomaaliyeed ee kala jiraha ee dhinacyada kale ah isku hayaan arrinkaas waxaan leenahay uguna baaqaynaa inay joojiyaan ilaahayna uga baqaan dhiigga muslimka wixii khilaaf jira wax kastaba ha ahaatee ama dhul ama xoolo ama adduunyo la ysku hayana in heshiis iyo wada hadal sida adduunkuba uu isku fahmo in la isku fahmo oo dad cuqaala dhex geliyo
oo loo xukun tago kitaabka ilaahay iyo sunnada nebigiisa calayhi الsalaaةu wasalaam fain tanaasactum fii shayءi farudduuhu ilى اllahi wالrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi waاlyowmi الآakhir haddaa ilaahay iyo aakhiro rumaysan tihiin alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay u xukun taga kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga alayh الslat slam marka waxaan ugu baaqaynaa dhinacyada colaadaas maaragtay ay ka dhexayso dagaalkaasu maslaxa cidna uma aha muslimna uma aha puntland uma aha galmudug uma aha soomaaliya uma aha cidna maslaxa uma aha waxaan shaydaan iyo acwaantiisa ahayn maslaxa uma aha marka dadka dhiigga muslimkaana ha la joojiyo ilaahayna ha looga toobad keeno wixii jirana wada hadal iyo walaaltinimo iyo miiska ha lagu xaliyo horta arrinkaa waana ka tacsiyeynaya waana ka baaqaya muxaadaradayda intaana gelin muxaadaradaydu waxay toos xiriir ula leedahay arrimaha inagu dhacaya ama ummaddeenna ku dhacaya ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqiga isagaa abuuray dhulkanna isagaa sameeyey huwa aladii khalaqa alarda waالsamaawaat bani aadamkana isagaa ku abuuray oo yihi inii jaacilun fi اlardi khaliifa dhulkaanaan idin dejiyey anigu aan iska leeyahay ilaahay baa abuurtay dhulka oo iska leh in alarda lilaahi yuuriثuha man yashaau min cibaadi hadduu dejiyeyna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amray hanuunka ilaahay soo dejiyey in la raaco oo aan laga leexan faima yaأtiyannakum minii hudan faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqى waman acrada can dikrii faina lahu maciishaة danka qofkii markaa hanuunkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkiisa iyo khalqigiisa raaca hanuunka ilaahay mana lumayaan mana dhibtoonayaan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday haddii ay diidaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u ballan qaaday ugu yaboohay dhibaato iyo nolol adag inay gelayaan sidaas darteed 10 arrimood baan tilmaamaya meeshu way kulushahay dadkuna waa badan yahay mar raba warkayna aad ugu sii dheeraado waxaana inta badan siin doonaa su-aalihiina in sha allahu tacaala 10 qodob baan tilmaamaya 10 qodob oo qawaacida oo asal ah oo diinta kitaabka iyo sunnada laga soo minguuriyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda islaamka jiritaankeeda iyo nolosheeda iyo wanaaggeeda iyo barwaaqadeeda in lagu ilaaliyo ilaahay ugu talagalay haddii laga leexdo mid ka mid ah dhibaata ka dhacaysa natiijada ka dhalanaysa waa dhibaatada aynu hayn warka aakhirkiisana waxaan tilmaami doonaa 3 qodob oo xal u ah inaynu ka baxno arrintaas hadda aynu ku jirno iyo dhibaatadaas aynu ku jirno baan tilmaami doonaa in sha allahu tacaala 10 qodob binta koowaad waxa weeye sidii haddaba arartaydu ahayd in la raaco oo laysku xukumo shareecada islaamka oo xambaarsan bani aadamka waxa daruuriga u ah oo dhan inay dhowrto waxay culimmadu ku tilmaamaan maqaasidu shariica shareecadu waxay leedahay ujeedooyin lagu ilaalinayo bani aadamkan jiritaankiisa iyo noloshiisa baa shareecada ilaahay u soo dejiyey shareecadaas in la qaataa waxay tahay in la ilaaliyo ujeedooyinkii ilaahay subxana wa tacaala shareecada u soo dejiyey oo ah 5 arrimood oo bani aadamka daruuri u ah in la ilaaliyo maxay yihiin 5 arrimood 1 diintooda 2 dhiigooda yacni cirdigooda sharaftooda in la ilaaliyo caqligooda in la ilaaliyo maalkooda in la ilaaliyo naftooda 5 arrimood diinta nafta caqliga maalka iyo sharafta qofta in la ilaaliyo 5 arrimood baa shareecada islaamka bay yidhahdeen culamadu ku soo ururiyeen inay ilaaliso bay shareecadu u timi diintii in la ilaaliyay shareecadu u timi ummaddu waxay ku jiri kartaa diinteeda in la ilaaliyo oo diinteeda loo ilaaliyo dadka mas-uulka ah dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa diintooda siday ku ilaalin lahay hadda waxaan maqlaynaa dad soomaaliya gaaloobay soomaaliya diintii ka baxay dad soomaaliya shiicoobay dad soomaaliya sidaas iyo sidaas ay ku dhacday
waxaasoo dhanna waxay ka dhalatay ilaalin la'aantii diintooda in la ilaaliyo oo shareecadu ay u timi oo dhulkeedii lagu ilaalin waayey oo mas-uuliyaddeedii la gabay waxay u timi shareecadu naftii in la ilaaliyo waataan hadda ka hadlaynay naftii qofka soomaaliga ahaa ama muslimka ahaa koobka shaaha maanta uu ka fudud yahay daqsi meel lagu dilna uu ka fudud yahay soomaaliya ku baaba'aya ciraaq ku baaba'aya suuriya ku baaba'aya afghanistan ku baaba'aya meel kasta dhiigga muslimka saasuu u daadanayaa wax dan ah iyo wax qiiro ah iyo wax xanuun ah oo in badan dadka muslimiinta ka haysana war muxuu yahay dhiiggan muxuu ku daadanayaa maxay tahay sababta ku daadan waa qaali dhiiggan qof tawxiidsaday oo ilaahay u sujuuday oo ilaahay aqoonsaday ilaahay ma ogola dhiiggiisa in naftiisa la gooyo si sahlana lagu daadiyo innagana saacad walba baa la daadinaya taasu diin maaha mana ilaalismi karto ummadu mana jiri karto ummad aan nafteeda la ilaalinayn oo dhiiggeeda la ilaalinayn oo aanu qiimo lahayn waa inuu qiimo noo yeeshaa waa inuu culays nala ahada waa inuu diinta meeshuu ka joogo waa inuu dadka muslimiinta ka joogaa qofna waa inaanu taageerin wax naf ilaahay lagu goynayo xaq darra ah walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq waxyaalaha ugu waaweyn labadaa arrimood saasuu ilaahay isugu xejiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shayan diinta ilaalinteedii wey shirki in laga fogaaday kufri laga ilaaliyo nafta walaa taqtulu الnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq nafna ha goynina xaq daro meel kale ilaahay subxana wa tacala isku xeji والذين لا يشهدون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون كم إذا مقاصد الشريعة هذا إلهي يسكو حجي حلقة دنبيا وقوة وين إنه تايو إلهي لقلو نف لقويو شرك لقلو عرضي لقو حد قدبه والزنا لليمان مقاصد الشريعة هذا وقضوا ككوات شريعة هذا إن لا إلاليه ومضوا ويكون دور مكرتها هدان لا إلالين شريعة الإسلام كا iyo maqaasideeda ummaddaas ma jirayso qodobka labaad waa ilaalinta midnimada ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan muslimiinta hal ummad buu ka dhigay ina hadihi ummatukum ummatan waaxida inama almu'minuuna ikhwa almuslimu akhu lmuslim واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ummad kasta oo marka kala firiqda kala qaybsanta ma jiri karto ma joogi karto adduunka xataa kuma sii jiri karto waddankan hadda aynu dhex fadhino ee Malaysia intee qowmiyadood oo kala jinsi oo kala luqa ah ayaa heshiis ku ah oo wada degan saddex qowmiyadood ugu weyn waa ogtiin oo kala diimaa muslimiinta malayga muslimiinta kuwa Chinese-ka kuwa Hindiga ah iyo ummado kale oo ku dhex jiro yar yar haddaanay jirin wax la isku waafaqsan yahay oo ummadaas ay ku heshiiso haddaanay jirin ma jiri karto dalku ma jiri karo ummadina ma jiri karto waana waxa inaga maanta ina haysta hadda waxa intay soo dhaaftay wax walba intay soo dhaaftay baa dadkii hal magaalo wada deganaa rabahum in la isugu diiday yaa wada waxan waxay ku socotaa wax aqligee way diintee way sidee bay ku jiri kartaa keebaa jiraya haddii gobollo inta la isugu diro la yiraahdo dagaalama gobolkeebaa jiri doona keeba baaqi noqon doona wallahi inaan midna baaqi ma noqonayo haddii la isugu dhiibo hub laga waantoobi waayo oo midnimo la qaadan waayo federal land baan jirihayn puntland baan jirihayn jubbaland baan jirihayn kalaba gulmudug fulaan baan jirihayn somaliland baan jirihayn wax jiraya ma jiraan waan arki doontaan taariikhda qofkii noolaada wuu arki doonaa ma jirayso midina ma jirayso wallahi inaanay jiri karin kitaabka ilaahay kuma taal oo sunnada nabigiisa calayhi kuma taal oo taariikhda ummaduhu siday u jiraan bani aadamka kuma taal laguma hayo taariikhda siyaasiga adduunka laguma hayo ummad intay iskhilaafto kala go'do isdagaasho jirta haddana oo ummad jirta noqota lama soo arag lamana sheegin mana jiri doonto idinkuna kama tihiin ummadaha mid ka duwan midnimo marka waa waxa ummaduhu ku jiri karaan kaliya
waxa maslaxo ugu jirta oo noloshooda ku jirta inay heshiiyaan qodobka saddexaad waxa weeye walaalayaal daacadnimada iyo shaqo wanaag iyo ammaanadu wax walba oo shaqo lagu qabsanayo ama mas'uuliyad loogu dhiibanayo qof inay wax walba ka horeeyaan asaas waxa u ah inna khayra man istaajarta alqawiy alamiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhisay ummadda shaqadeeda maamulkeeda mas-uuliyaddeeda siyaasaddeeda xoolaheeda maamulkeeda ammaano iyo ikhlaas iyo shaqo wanaag dadka waa intaa lagu qiimeeyo waa intaa lagu siiyo waa intaa shaqo loogu dhiibo madaxweyne ka soo bilow ilaa askariga ugu hooseeya waxaa lagu qaataa oo lagu qiimeeyaa maha qabiil maha waa reer hebel maha qolo hebel 20 bay leedahay qolo hebelna 20 bay leedahay maaha waxa weeye yaa shaqada yaqaan yaa daacadnimo leh yaa ammaano leh ummadda aan taa qiimayn ma jiri karto adduunku ma jiri karto saddex waxaa weeye walaalayaal hoggaan wanaagsan ummaddu inay samaysato hoggaan wanaagsan doonato hadday ummaddu iska hormariso kuweeda xun si kastaba ha ku yimaadaan laaluusha ku yimaadaan iibsasho ha ku yimaadaan gadasho ha ku yimaadaan cid kale inay u soo yeeriso ha ku yimaadaan ummadda aan hoggaan iyada ka dhasha oo iyada ay dooratay oo iyada ammaano iyo xil inuu qaadi karo u dooratay ummadda aan samaysani ma jiri karto ma noolaan karto ma jiri karto ilaahay subxaanahu wa tacaala hoggaanka wanaagsan wuxuu amray oo sheegay inay taqwo iyo wanaag iyo iimaan ku yimaadaan ummaddana markaa wanaag u hoggaamiyaan wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun ummadaha iyagu qaata hoggaan xun oo ay qabiil iyo qabyaalad ku doorteenna way baaba'aan iyaga iyo dhulkooduba wuxuu leeyahy alla subxaanahu wa tacaala qowmu hamuud markuu ka hadlay وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 9 oday oo mufsidiin ah baa reerkaa lumiyey oo reerkaas eersaday 9 oday oo iyagu odayaal ay ka dhigteen oo madax ka dhigteen waa reer Thamuud nabigii ilaahay calayhi salaam ee saalixana way diideen wadadiisii warkiisii way maqli weydiin maxaa ku dhacay marka ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala qaaluu taqaasamuu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasaadiquun wa makaruu makran wa makarna makran wa hum la yash'uruun dhagar bay degeen oo nabigii ilaahay iyo diintii ilaahay u degeen laakiin ilaahay makrigiisa ka sarreeya بل waxa ku dhacay eeg buu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala fanzur arag nabi maxamed alayhi salatu wasalam yu ujeeda qowm thamud imisa u dhaxaysa kuma yaal sana u dhaxaysa sooma laakiin taariikhda iyo waaqica quraanku ku sheegay waa dhab weeye kaanama aad arkayso oo kaanama aad u jeedo way wax quraanku ku sheegay markuu ku yiraahdo fircoon fiiri wuxuu ku dhamaaday macnaha waxa waaye inaad arkayso oo kale waa xaqiiqo fanzur buu yiri nabi maxamed oo arag كيف كان عاقبة مكرهم عربتي مكرقوض السيدة نقطي بل ايك أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وان باب إني وان دبرقويني إيجي يقوم كودي قومكم محا قومكم متيستين دبرقوينت وضياشان مجرمين تاهي سقالكا قرني قومكو محا إيجي للا دبرقوي حالا إيجي راعين نبي إلهي يدين إلهي من راعين يا هداد مركا ماذا عن دين إلهي كسعون أو عدالة كدغمين أو هذا الدين إيه إخلاص إيه الدين هذا كد دورا هذا دورة الرير نمو هذا دورة القبيالة هذا دورة وين هذا كي سوى ظالم سوى جايب كينو بحسدو كلية مشوشو سوى جوانا وين وطاو وكوشقا يستعديق وكوشقينين سوى نضل إيه الدين منا كنحي هاي سوون ضد
tadood ba ayaan ahayn hadda Soomaalida ma cid ba tala weydiisa madaxdu tala ma weydiiso Soomaalida meel kale looga taliya waxa muhiimka waxa weeye maxay tiri qola hebel maxay yiri international community muxuu yiri Ethiopia maxay qabtaa Kenya maxay qabtaa qola hebel maxay qabtaa ba madaxdeenu sida qaalibka ka fikiraan muxuu qabaa shacabka Soomaaliyeed muxuu doonayaa dadka Soomaaliyeed maxay rabaan nees ma weydiiyo wax dan inaga leh ma jiro waxayna weydiiyaa ma jiro yaa taleedin weydiiyay yaa waxayna weydiiyay yaa idin yiraahdo waxa ka taliya baankaas ka taliya qofkaas idin talin doonee ka taliya yaa idin yiri qofna laynama yira maaha markayna ogolaano anagu aanu noqono wax jira oo aan jirin wax jooga oo aan joogin dad taagtaagan oo mutuxan oo haddana looxyo meesha taagtaagana ama geedo meesha taagtaagana inaan noqono ilaahay raalina kama aha ilaahayna nagama dhigin saasaa qoomkii Thamuud la halaag sagaalkii oday oo mufsidiinta ahaa oo hogaaminayay bay raaceen فانظر كيف كان عاقبة أمرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم قريوه ذي أكبيري نبي محمد يا قريها بربرسان يا حافظها بربرسان ديار صالح يا قوم ثمود ويكوتها على الجزيرة العربية هذا تيجي سنين رياض ملا بقول كيلومتر وجرتاي صو يا قريوه صو كسيت ومدى دونيسة إني جرته وأنا اللي هذا هجان إياه كذا شيء أو ضاعد نمله أو إخلاص له أو إياه مصلحة هذا كتلنا إياه أو إلا حساب تنطو هدود ديدو أما مصلحة هذا كوسعون ويانا فريسة تراهضة لكن أنا قبيلة يرهره بالبانونا إيه أنت أسرهره بالليه هذا وحجرة كل جينا ودكتين وحالين كل حسابية ده إذن حتى أجين وهيك الشقيان هذا عي حتكون ردا رهره بالواحد لسيه طبعا شنو يصير بالسيه ومحادي شنو يصير كاسو جاري تعليني مسات كاش عافيمادي مسات كاش عيلي مسات كاش بيا محاد كاش مصلحة محاد كاش ضن محاد كاش بدأ عاد كنت هذين يسمى مكابد بادي قحوتي قاعد هاي مكاغ النحي ميل ما كنت تجي ما حيكون ترتي مركز رير هبل لما تنبقات ما توان بقات ما حيكون ترتي وانا هاين مقع حنو قبيالة ادمارة يسوق في علتبس ما حيكون ترتي وكلا ما حد يقول دررتي وهذا يقول دوديس تاسو wax lagu ma doorto ma jirto marka ummad aan hoggaankeeda iyadu mid ikhlaas iyo amaano ku dooran oo iyadu ku hogaamiya ma jiri karto arinka afraad waa sabir ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka kariimka boqol aayadood buu sabirka ilaahay umada faray ninka iyo xaaskiisu ma wada joogi karaan hadaan dulqaad yeelan oo sabir yeelan gurigu ma dhismi karo waan sabir jira waan dulqaad jira يا نينكا حقيسي حقي لغو لها wax badan ka tagay gabadha laga yaaba xaqi lagu laha wax badan inay gafto sabir baa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay ilma jira nolol baa jirta xiriir baa jira wada noloshaa jira ay guriga saas ugu dhowraa labada shirkada ah waxay u baahan yihiin sabir dulqaad bay u baahan yihiin labada wadanka wada leh gobolka wada leh dulqaad bay u baahan yihiin ummadda dhulka wada degan dulqaad bay u baahan tahay iyo sabir iyo inay soo dulqaadato maya waan xanaaqay أكان سوق هذا نيا أدنى مدفع هوبية سوق هذا هرف طبعا عياله هي طبعا دمرة كلي بقول خلينا حاجة كويا جوارده هلا فول هلا قاع نحيت وحص أو دتك المسلمين تاهم سمريجري أو دتك أكاد سجري واصبروا إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا والرابطوا ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور ولئن صبرتم لهو خير للصابرين حاجة كامرة تقف مسلمة تكون هي إن لا صبر الله كاريو نبي يعقوب ويلكيسي ugu wanaagsan wiilasha ugu jeclaa baa inta loo yimi waxa la yiri wiilkaaga aabo bahal baa cunay bal sawalat lakum anfusukum amran wala naftin waxa idin qurxisay waxa samaysan waxa jira fa sabrun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun وما يسوس صبرين وسود القادن نقول ما يلاته ما نجرته أنا شواهي شيسك يوذي جرك وهذا نولانشة ضدك وحي ولا ريال ومضها أي كجران ما هقول والبوح والبيني هليش لكن واحد جرى هشيس واحد جرى ريكونسيليشن واحد لافك غلط هشيس وحوداك يا وحوداك وحوال وداك مصلحه جدكم إنه تشرو
maslaxay noo tahay noloshu inay jirto maslaxay noo tahay nabad inay jirto anigana maslaxay tahay adigana maslaxay ku tahay gurigaaga inaad nabad u seexato adigana nabad maslaxay ku tahay anigana maslaxay ii tahay gaal iyo muslim nabaddu waa gogol naseexaada buu ninkii Soomaaliga hogaamiyay gaal iyo muslim nabaddu waa gogol naseexaad colaadi midna uma aha maslaxa ma aha saas darteed dadku waa inay ku heshiiyaan waxa masaalixdooda oo mustaqbalkooda oo noloshooda waa inay u heshiiyaan ay wadaagaan haddii kale natiijadu waxay noqonaysaa sida innaga hadda inagu dhacday sida dalal muslimiin oo badan ku dhacday liibiya maanta xaggee taaganta soomaaliya xaggee taaganta suuriya xaggee taaganta ciraaq xaggee taaganta yemen xaggee taaganta وهلم جرا استبقلي وصوص عضان كوا كلنا والله جابا إن لاركم هذا اللي جوا توبين إن لا يفهمون يا أيها الذين آمنوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم إصلاح وين القاطع إصلاح هشيس فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم والله إلهي ما حد عجريتان كي نور ربا إلهي إنا نولاتان بوين الله ربا إلهي إنا دولك إنا نبدو دقناتان بوين الله ربا إلهي سبحانه وتعالى عرورتي إنا نبدو كرسطان بوين الله ربا إلهي إنا دينتي إنا إذين حافظ ناتو بوين الله ربا هذاك لا يعدان دينتي وين كلو ميسا عرورتي وين كلو ميسا دمرك وين كلو ميا نولشي وين كلو ميسا حتى warqadiha ku socon lahaydeen baa idin ka lumay passport raxta ma helaysan aad ku socotaan noloshiina iyo dhan baa lumaysa marka wada noolaansho iyo heshiis xataa haddii wax kaa maqan yihiin wada noolaanshuhuna kuma imaan karo haddaanu jirin tanaasul iyo isu tanaasul ilaahay ninka iyo xaaskiisa hadday iskhilaafaan oo xoogaa dhibaato xataa wax ka dhex jiraan oo inay kala tagaan ay ku sigtaan ama dalaaq u yimaado إلهي وحير وهشين كران ويسو تنازلي كران سنو لو شو سي جرتا كفي عن ده هو انتو نيكا ذيك باخذوا مارته مثلا حيال كلامك كتجي ما واي تنازل ويسو تنازلي كران وحبان كتنازلي حقي انا لها صوما انت سكاغا تنازلي واي هانشين وساق ودا نولان ما دحاي نبضه iyo wada jirka iyo wada socodka ayaa maslaxa labadiinaba idin ah hadii kaleeto labadiinaba ma jiraysaan saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa ta'aala وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح يا مسألة تضباط أما سديدات وحويه فريدة سمها إيو الريبيد حمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومضوا هداني وناقنا إسفرين حمانتنا إسكر ريبين مجري كرتو مداس ومجري كرتو من غنيس ومضاها كلنا إنك ماشى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلهي سبحانه وتعالى ونوغا ديغي ومضا كلو عن دين أقون وعن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقون أيا وحي سميستين صحافة حرة مثلا waxay samaysteen baarlamaano waxay samaysteen hay'ado u ilaaliya wanaaga iyo la dagaalama corruptionka wixii xun mujtamacooda ka ilaaliya walidaalika ayaad waxaad ku arkaysaan wadamada aad joogtaan saxaafad xor oo ka hadlaysa dawladii bay ka hadlaysaa waxay ilaalinaysaa hanaankii nidaamkay ilaalinaysaa qofkii leexda maslaxadii guud ka leexda ayay maaragtay ka hadlayaan waxaad arkaysaa hay'ado anti corruption iyo waxyaalo la mid ah loo bixiyay oo ilaalinaya hantidii guud bay ilaalinayaan kii wax dhaca fartay ku fiiqayaan waa gaalo maaha muslimiin amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wuxuu yahay xataa ma yaqaanaan laakiin wixii xumaan ummadooda ku ah bay reebayaan wixii wanaag waana waa amrayaan ya wadada haddii la soo maro oo jidka la arko inuu jajaban yahay budgetna loo dejiyey waa ka hadlayaan waxay oranayaan jidkanu muxuu la jajaban yahay budget baaba la siiyey muxuu la jajaban yahay lacagtiisa xaggee aaday waa sida ummaduhu ay dhaqmayaan ama ay ku magacaabaan saxaafadda xorta ah freedom of speech freedom of press iyo wax la mid ah iyo amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ma yaqaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga goormuu inoo dejiyey quraanka inoogu soo dejiyey ya
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إيمانك إلهي قدال مريي الأمر بالمعروف وناق فريد هذا iyo xumaanta reebideedii buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hormariyay hadaanan oran karin daalimka daalim baa tahay ka joog dulmiga kan waxaday waa dhacday ummadii hantida waa dhacday ka joog hadaan oran karin ummadaas ummad jiri karta maaha ummad jiritaan yeelan karta maaha ummad nolol yeelan karta maaha waxa kamid ah walaalayaal oo qodobka sagaalaad ah talaabo kasta oo ummadda ay qaadayso waa inay ku dhisan tahay oo ay u egtaa dad muslimiin haday yihiin shariicada inay ku banaan tahay iyo inaanay ku banaanayn waxaas maslaxa inay yihiin iyo inaanay maslaxa ahayn qolaa dagaal iska go'aansanaysa qolaa meel iska gelaysa qolaa maartay jahad iska kicinaysa waxaan maslaxa ma tahay shariicada islaamka ma ku banaan tahay dad muslimiina weeye waa inay eegaan oo yiraahdaan ma ku banaan tahay maslaxa ma ku jirtaa mise kuma jirto waa inay yiraahdaan hadaanay taa oran iyaguna waxay ka dhaxlayaan burbur iyo baaba bay ka dhaxlayaan ugu dambeyntii u noqoshada kitaabka Ilaahay iyo culimada iyo wax garadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay ya ayuha alladina aamanu war kuwa Ilaahay rumeeyayo mu'miniin tow atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر dadkiina madaxda ah wanaaga ku adeeca macsiha ku adeecinina culimadiina adeeca wanaaga ku adeeca macsiha ku adeecinina qof kasta oo bani aadam ah oo la amray in la adeeco waxay ku xiran tahay adeecidaas inuu Ilaahay iyo rasuulkiisa isagu adeeco wixii taacada Ilaahay iyo daacada rasuulkiisa alayhi salaatu wasalaam ayaa lagu adeecaa wixii aan ahayna laguma adeeco la taacata li makhluuqin fi ma'siyati al-khaliq jazakallahu khayr al-jazaa fadilata al-sheikh Allah ku barakeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankaaga Allah kugu daro xasanaadkaasi iyo khayrkaasi aad noo sheegtay annagana Allah naga dhigo kuwii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku soo hanuuniyo amal falka khayrka aad noo sheegtay walaalayaal waxaan halkan ka ogeysiinaynaa in insha Allah ta'ala berri in ay muhaadaro jirto gaar ahaan khusaysa dhalinyarada ama ardada jaamacadaha Malaysia wax ka barata marka mashruuc ama arrin ama muhaadaro khusaysa oo ayaa u gaar ah ayaa berri halkan ka dhacaysa cidii ka faa'iideysanaysa laakiin waa u furan tahay taasi waa midda koobaad midda labaad insha Allah ta'ala muhaadarada intaas ay inoo eg tahay oo waqtiga maghribka ayaa jooga oo la dimahaya marka waxaanu ka codsanaynaa dhammaan dadka soo xaadiray khayrkan u imaaday si nidaamsan inay u baxaan oo ay nidaamka ilaaliyaan oo si hadhowto meelaha loogu ogolaado oo si fawda iyo qayle iyo buuq aanan ku bixin dumarkuna marka hor baxaan si tartiib ah raggu ay u kaadiyaan ay sugaan nidaamka iyo sida hadda sheekhu ka sheegay aad loo ilaaliyo si mataqaana dib dambe berri oo kale iyo in loogu ogolaado. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.